هذا وحصول ويندنا إسماعيل جهية. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقت جاي نقول يرو وحبشر شرحي معيو إن كل قرآن كا مركان ضد كا وبربر ومذوبي هاي لتشوق نوان ويرفع فاهنا ما صدا لكن أهل كي قرآن كا مش فرديا مسجد كفرديا سيدات درادد وان سيدين دونا maansadan baxriga ama badda ay ku jirto waa badda facuulun salliga nabiguna allahumma salim wa salim ala habibi muhammad alayhi salam af Soomaaliga waxay isku baxriyin maroodi cadhoole markii col sheego adaada ku meere وبحرقاسي في الصومالي سكويسنين إن ما نصدق وحكي لك هذا ما يصير القرآن كوينو قصص يتوحيد يأحكام كلي هي أيام ضدك أقوم وتشيني إن وحكي بلابنتين هل قافلية مانسو هورار قطر لي هل هيس لقرشي تحير قرنتاجن سوغان قستي وين لي انتان كقرايي قرار مرتييسن انتان قمينايي هراب قبانيسن انتان اسكو قاديه قاد قرديد لي مدقاب كتانيرا هرو مقرشين مركان قرد كيدا قماتي اصافو سيقالي محدة محديدة اقيحو أدو قرن ويني وحان قلقلو عشو أما يقا قبيح ما أما انقمنان مردو قبندونا أدو قلبي في عنقمات أفيري تديو قرن ويني مهمة قادر قرآن ككوده هاي أنو كقراء قلوبتي يمانكا مركان كقصودو هدي قلبي قاقو قشوع يردريم قوي لحسوسو قويل وإلهي أنا جاي أوراني ما صفي عن بوتريي إلهي بيوافجيي هدي أدو يرقشوا عدو إلهي حسوسه قويل حسوسه تدوين قرانكو ورماها قف كيني قبيل مصميسن قراما أبورين ورقيس قران ماها قرين كومدودين أبوان مقرشين فنان مقادين wadaad qalinduuri dadka uma qormaynin nin qaad ku mirqaamay qowluu yidhi maaha digtoor 5 qof baadhay dawadu qoray maaha qabaana ma sheegin qowsaar kuma baanin qiraaliya maaha gargeed lagu qaaday qusuusan ma keenin wasiir qodobeeyey ustaad iyo qaari midnaan ma qorshaynin قانون لغا ريباي قرون هوري ماها قرال نبي ماها قطار سحر ماها قولي مشيغين دقسو قبح ليي هشيس كما قادن تدقارت كنولنا وحقيبو أماها انتها مركان كولي ماها وحديقة فردائنا كوشاقا وحيوها قرآن كدد ويني دليل قرآن ويي دستور قمان ويي قول كير ربي ويي قينون ألا ويي إله قوة ديسة قرال سقي ويي قدوس المعبودكو قستقو أبوري وحاقفكو أومن قرقور هذا أونكا كتاب قري ويي قلافنا ما يشو حقيقة قرآنكا قفكي الرومية كالكيسة قلوبتا هبال وقاتا سفي عنو قيبا قيمة أسقناضي قويل أكسوي ننكيسة قلافة قرآن كالرحمن كو قسار موايو مركات قصوصا كتاب كان قرآنكو انتو قراليك يقوماتي ودوحدو تديو قران ويني برباك قصودا توحيد قطر ديرلي سفوين كقادر أسماد قويله قرار سميدودا قيبات دوني دينا هبكو قرشيي وحا قلب صارا قروحدا ugu yeelay
siduu qalinkiisu khilaaf uga dheeriyey sidaan qalalaase qof gaari sameeyey intaa uga qaadin sidaan qolo diiday korkiisa u qoomin midhkaa ka qasaarin allaha qani sheegtay wuxuu quwad leeyay dad yow qaran weyne qur-aanka ilaahay badh baa ka qisooda axkaamta qur-aanka quwiila ku dheehay axkaamta u qaybsan in qaadiru doortay cibaado u qaasa in loo qasti yeelo axkaamtii baan cibaadaadkii iyo mucaamilaadkii u kala saarayna cibaadaadka tusaale waxaynu uga soo qaadanaynaa 5 arkaanu islaam mucaamilaadkana midhar baynu ka taabanaynaa dabeedna qisaskii baynu dhex geli doonaa axkaamta u qaybsan cibaado u qaasa in loo qasti yeelo hadday tahay qowlka qof daayin rumeeyey hubaal ugu qaatay ilaah qiridiisa khushuucda salaada sakada qof u baahan qumaati u siinta qadoodiga soonka markaad qarash haysa qiimaha xajku leeyahay ka qaybgelidiisa axkaamta qudheeda badh baa ka qisooda macaamil quseeya qaynuunka hagaaya qurumaha uman hadday tahay qaabka rug loogu qormeeyo lamaana isqaatay lamaana si qaab leh marqaadi asteeyey ka qaybgalay shaahid qoys loogu sameeyo badh baa qodobeeya hannaankii iyo qaabka hubaal qabadsiiya lamaana qardoofo dhexdooda ka qiiqda in loo kala qaado qoraalka nikaaxa badh baa qodobeeya haddii nabar qooni qof gaadho korkiisa intaan laba qaylin qas loo tafaxaydan wixii u qalmayay in la iskaga qaato axkaamta qoraysa badh baa qodobeeya intaan qudhle gooyey qardoof ka abuurmin hub la iskugu qaadan qabiil ku dhaqaaqin qabiil kala weerar haweenkuna qiiro gubaabiya qaylo dibnaa u kala qaadin ee aan la quweynin ibliis qaradkiisa ammaan la khilaafin qaynuunka ilaahay axkaamta qoraysa in la isku qisaaso hadday qarmi weydo axkaamta qiraysa inaan xalqatoobin axkaamta qoraysa mag la iskaga qaato horweyn iyo qaalmayn qaadir baneeyey badh baa qodobeeya hannaankii iyo qaabka u qaybsha hubaal ugu qaybsha wixii dhaxal qoysa agoomaha qaadir duqii dhalay qaatay badh baa u qorshaysan haddii qasnad buuxda nin qaafili taabto oo tuug iska qaata adduun qololeeday wixii qabanayay badh baa u garqaada dad dayn kala qaatay marqaanta dhexdooda khilaaf ka abuurmay isqaanabid keenay badh baa u qorshaysan jihaad lagu qaado qafuururaxiimka kufaar qiri weyday dad yow qaran weyne iminkana qisaskii baynu gudbaynaa halkaa axkaamtiin kusoo koobaynaa dad yow qaran weyne qur-aanka ilaahay badh baa ka qisooda wixii qaybe iyo waxaynu kala saari doonaa taariikh badh baa ka qisooda wixii ifkan qoomam daraad ka qarqoostay intii qolo xoogle quwiila halaagay intii qaran buuxa ku baaba'ay qaylo intay qolo laysay dabayl qof mareebi intii laga qoomay hannaankii iyo qaabka qof ruuxa la siiyey ee ay quruxdoodu qalfoof bahalowday qiraad laga yeelay intii kibir qoodhin qardheer uga duushay intii kufri qooqay rasuul quman diiday intii qolo fiican quwiila hanuushay dad yow qaran weyne badh baa u qorshaysan ayaanta qiyaame qisooyinka yaalla si loogu wax qaato hadday tahay qoomka ay qaaf naga hayso ku qoofalay mawle qarnayna ku dayray ilaa qaran weyne galbeed qoraxdeenna qacwaagu iftiimay qudh looga arkaayo ilaa qaran weyne ay suurtu ku qaylin quruumaha gaadha ilaa qaran weyne badaa lagu qaybshay qaybaha dunideenna ilaah qarqin doono ilaa qaran weyne dadkoo wada qaawan qubuuraha iilka qafuururaxiimku ka soo qufi doono ilaa qaran weyne kitaab lagu qeexay
qof baan camalkiisa qawilo hor keeno oo uu ka sadqaado miisaanada qaadir ilaa qanigeenu dadkoo dhan u qaybsho in qaadir ka buuxsho cadaab qarqaraysa cadaab barqabowiyey barqaaciyo naariyey barqay la yidhaahdo hubaalna u qaybsan kuwii iska qaatay qof maalu dambaabo xaraantana quutay agoonta qiyaamay ku qooqay adduunka qam eebba ku siiyo ilaa qanigeenu qumaati u geeyo jannooyin qorshaysan kuwii dhab u qaatay qur-aanka raxmaanka inaha ayaan ku soo koobayaa maanta waa maalin qaaliya waa madal qaaliya waxaynu ka soo qayb galay ubad qaaliya oo qur-aankii ilaahay bartay goobteenu joognaana waa masjidkii ilaahay waxaa meesha maraya culimadii ilaahay maalin jimco ah oo saacaddii ay ku jirtana waynu ku jirnaa waxaan jeclaan lahaa waqtigaan ii saamaxayna inaan gabay roob doon akhriyo laakiin waqtigu ii saamaxi maaye inaan ducaysano ilaahay roob hayna siiyo ilaahay abaarta haynaga soo furto ilaahay barwaaqo hayna siiyo ilaahayow ubadkaa yaryare qur-aanka dhameeyey fadligooda nagu sii roob ilaahayow beydkaa aanu yoomul jimca isku nimid nagu sii fadligiisa roob ilaahayow fadliga nebi maxamed baanu roob kaaga barin ilaahayow annagaa gafneed toobaanu ku leenay allah yaa rabbi faataxa